maadaama ay ugu wanaagsan tahay inta afareyda la sheego abwaanada Soomaaliyeed iyo culimada iyo dhammaan inta wax garanaysa maalinta ay hadasho maanta oo kale ugu wanaagsan tahay Soomaali xaalad ay ku sugan tahay cid walba ay ogtahay waxaan rabaa tixyar inaan ka yiraahdo waan ognahay qarnimada Soomaaliyeed inta loo soo maray rag baa warqad u soo liqay raga cirbad sun iskugu soo dhuftay si aan saaxiibkiis oo ka soo hadlay meesha aan loo durin awgeed asiga iskiga qayb gali waad ogtiin xalan la xirada xalan loo hadla taagan yahay wiil laba alif loo hay askari adowgiyo jabay oo calanka arkiyo calanka inaan la furin oo asiga soo qaad awgeed u dhaawam xornimadii maalintaas inta loo soo maray hadda ay qawidaan leedahay 3 iyo 4 iyo 10 oo Israa'iil ay soo asaastay anagoo intaan hadda inaan difaacan wayno waa nasiib xumo sadaradeed anigoo ah askari xoog dalka Soomaaliyeed ka tirsan qayb 27aad guutada shanaad maanta waxaan rabaa dareenkayga inaan ka hadlo waana ku bilaabayaa Soomaalida saqiir iyo kabiir sabi iyo waayeel dalku ku sugan intii qaarad kala saaran Soomaalida saqiir iyo kabiir sabi iyo waayeel dalku ku sugan intii qaarad kala saaran waa idin salaama askari farax ku saaxdaan sidbursi aanu wadan heblow lacag kugu siiya anigoo si kala sokayn magaca Soomaali calankan sareyntiisa iyo sidagta maandeeq iyo guusha Soomaali baa saaka nagu filan ma difaacan karnaa iyo guusha Soomaali baa saaka nagu filan 30 sano macaabiis xiriyadaan sabab la'aan keenay 30 sano macaabiis xiriyadaan sabab la'aan keenay badda cadawga saynta u luxay waa ku sari waay waa laga saxiixo asaasami lagu yeeshtay sanadkii horena waxa leeyahay hawada Soomaali saasaan dawladeedaan arko saaka soo socotee Soomaalida saqiir iyo kabiir sabi iyo waayeel dalku ku sugan intii qaarad kala saaran waa idin salaam askari farax ku saadaan anigoo si kala sokayn magaca Soomaali sidbursi aanu wadan heblow lacag kugu siiya calankan sareyntiisa iyo sidagta maandeeq iyo guusha Soomaali baa saaka nagu filan ma difaacan karnaa Soomaaliyeed